kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta wada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dowladda Itoobiya ayaa jawaab culus ka bixisay safiirkii ay dowladda Soomaaliya dhawaan ay ka caydhisay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sidoo kale qarax weyn ayaa ka dhacay jaamacad ku taala gobolka Axmaarada iyadoo dad aad u tiro badan ay halkaasi ku leedeen afayeen u hadlay booliska gobolkaasi ayaa sheegay inay ka dambeeyeen xogaga argagixisaha oo waayadii ugu dambeeyayba ku soo badanayay gobolka Axmaarada dagaalada culus ee u dhaxeeya militariga Itoobiya iyo xogaga Afana ayaa cirkaas ku sii shareeray iyadoo xogaga Afana ay sheegeen in degmooyin aad u ballaaran ay kala wareegeen militariga dalka Itoobiya ciidamadooduna ay si weyn iskugu sii baahinayaan gobolka Axmaarada ciidanka Tigray ayaa markale dhaqaaqyo militari bilaabay iyadoo maalmihii ugu dambeysay ay dulmaysiinta caalamka iyo reer galbeedku ay halkaasi dhexdhexaadin aad u ballaaran ka wadeen magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladdeegaanka Soomaalida waxaa ka dhacaya dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed rabitaankiisa badda cas iyo in Itoobiya saldhig militari ay ka hesho maamulka Somaliland dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday inay aqoonsatay ama safaarad ay u dhisi doonto maamulka Somaliland ay noqon doonto safaarad weyn oo la xuquuqa safaaradaha kale ee ku yaala dalkaasi Itoobiya iyadoo arrintaasi mar kale ay dowladda federaalka Soomaaliya ay si weyn uga xanaaqday qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ay warkana ku eegayna barnaamijka waxay kala qayb galaya Marbasoor Gooni haddaynu u gudagalo wararkani oo faahfaahsan dowladda Itoobiya ayaa jawaab culus ka bixisay safiirkii dhawaan laga soo caydhiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya afayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa sheegay inayna garanaynin dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto dowladda Itoobiyana ay wali ay ilaalinayso diblomaasiyadda iyo xiriirka soo jireenka ka dhaxeeya labada dal waa Itoobiya iyo Soomaaliya hase yeeshee midda dadka Soomaalida yaabka ku noqotay ayaa Itoobiya tallaabooyinka ay qaadayso iyo waxa afkeeda ka soo baxaya oo moodin inayna dhagahoodu ayna ismaqlaynin dowladda Itoobiya ayaa rugsoonayn 1 January inay maamulka Somaliland oo kamid ah dalka Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya kamid ah walina aan wax madax banaaniya iyo maartay aqoonsi aan adduunka ka helin inay dowladda Itoobiya ay sheegtay inay aqoonsanayso dhul dhanka badda lagu qiyaasay ugu yaraan 20 kilomitir iyo dhanka bariga oo garaan 200 oo kilomitir gaadhayana inay saldhig militari ay ka samaysanayaan gabi ahaanna ay la wareegayaan gobolka Awdal iyadoo ay sheegeen Itoobiya in la siin doono dekada Saylac ayadoo midaasi ay ahayd midii dowladda Soomaaliya gabi ahaanba sida weyn ugu xanaajisay dowladda Soomaaliyana inay bilowdo duulaan ka dhanaha Itoobiya iyo sidii gabi ahaanba dalka Itoobiya xiriirka loogu jari lahaa iyo khilaafka labada dal waa mid ka soo bilowday 1 January heshiiskii dhexmaray maamulka Somaliland iyo dowladda Itoobiya ayaa hadana maamulka Puntland oo si weyn ugu xaraaqay dastuurkii dhawaan ay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ansixiyeen dowladda Soomaaliya ay ku sheegtay inay noqollada dastuurkaasi ay noqon doonaan kuwa Soomaaliya u gogol xaadha inay dowlad awood leh halkaasi ka dhalato dadkuna uu doorto hogaamiye si dhab ah shacabkiisa uga soo dhaxbaxa hase yeeshee maamulka Puntland oo arrintaasi si weyn ugu xanaaqay ayaa dhawaan ogsoonayn inay dhanka iyo magaalada Addis Ababa ay u baxsadeen heshiisna ay la galeen dowladda federaalka Itoobiya ayadoo wasiirka arrimaha dibadda ama xogayaha guud ee arrimaha dibadda dalka Itoobiya kulan ula yeeshay wasiirka ganacsiga ee maamulka Puntland ay ku sheegeen inay galeen heshiisyo waaweyn dhawaaqay ka soo yeedhay dowladda Itoobiya iyo muuqaaladii halka laga baahiyeen ay ahaayeen kuwa qeexayay hadallada wasiirka u hadlayay dowladda Itoobiya inay ahayd mid ay ula dhaqmeen sidii dowladda dariska dalka Itoobiya ayagoo marnaba soo hadal qaaday dowladda federaalka Soomaaliya xubin ka socda dowladda federaalka oo meeshaasi ku sugnayn hase yeeshee Itoobiya Puntland ay heshiis galeen laguna sheegay in ay heshiis isdhaxgal oo maamulka Puntland iyo dowladda Itoobiya ay ka wada shaqeyn doonaan sidii amniga dalka Itoobiya iyo maamulka Puntland oo waqtigaas lagu yeeray dalka Puntland inay ka wada shaqeynayaan nabadna ay halkaas ka wada sugi doonaan iyadoo dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya khilaafkoodii mar kale baasiinka ku sii shubtay
dowladda Soomaaliya ayaa markaa kadib gebi ahaanba cayrsa safiirka iyadoo Itoobiya jawaabteeduna ay noqotay mid aan gebi ahaanba ayna dadka Soomaaliyeed ay jawaab u helin dowladda Soomaaliya aan u cuntamaynin Itoobiya wali waxay leedahay annagu waxaan ilaalinaynaa midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya waxay ka xanaaqdeen ma garanayno waa yaabe ma Itoobiya ayaan sugeyn ma Itoobiya ay dowlado badan ka dhex jiraan Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed wuxuu ogeyn ay golihiisa wasiirada iyo xubnaha dowladda BB ay saxiixi karaan midaas ayaa u baahan inay dowladda Itoobiya jawaab ka bixiso maadaama ay dowladda Itoobiya markaa safiirkeeda la soo celiyay ay ku sheegtay wax la yaab leh ayna garanaynin khilaafka marka la soo cusboonaaday iyo qeyladhaanta Soomaaliya waxa uu ku yimid waad mahadsantiin daawadayaal waxaan tagaynaa gobolka Axmaarada waxaa ka soconaya dagaal aad u culus oo u dhaxeeya militariga dalka Itoobiya iyo xogaga iska caabinta Axmaarada ee Faano xogaga Faano ayaa sheegay inay degmooyin aad u ballaaran ay kala wareegeen militariga dalka Itoobiya muuqaalada sida laga dheehanaya ayaa cadeynaya wadooyinka waaweyn ee gobolkaasi inay dagaalyahanada Faanadu ay taageen gaadiidka rayidkana ay iyagu kala hagayaan boolisna ay halkaas ka yihiin iyagoo sheegay gebi ahaanba maamulkoodu inuu ka shaqeeyo markii gobolka Axmaarada saddex loo qaybiyo laba iyo bar ka mid ah inuu maamulka Faano ka shaqeeyo arintaas iyo muuqaalada la baahiyay ee dowladda Itoobiya si weyn uga xanaaqday iyadoo la soonaayay ciidamo gaaraya 100,000 oo militariga dalka Itoobiya ka tirsan ay ka howlgalaan gobolkaasi duqeymo iyo weerar aan joogsan lahayna ay halkaasi ka socdaan militariga Itoobiya ayaa maalmihii la soo dhaafay duqeymo waaweyn la beegsanayay xeryaha ciidamada Faano ay ku leedahay iyo goobaha tababarayaasha ee dhulka Buuraleyda ku yaala sidoo kale qarax weyn ayaa ka dhacay jaamacad ku taala gobolka Axmaarada iyadoo halkaas ardayda markay fasalada soo buux dhaafiyeen imtixaankii iyo waraaqiina loo qaybiyay uu qarax weyn halkaas ka dhacay qaraxaasi ayaa galaaftay weeraan 40 qof oo ka tirsan shaqaalaha jaamacadda iyo ardaydii imtixaankaasi ku jirtay iyo maamulayaashii dowladda Itoobiya sarkaal sare oo u hadlay ayaa sheegay qaraxaasi inay ka dambeeyeen xogaga argagixisa waayadii ugu dambeysay dalka Itoobiya si weyn u soo galayay xogaga Axmaarada ayaa sheegay inay argagixisa aad u badan soo galeen gobolkaasi qaraxyadana ay caado u yihiin argagixisada hase yeeshee ayna ka dambeeyeen xogaga Faano iyo dowladda Toona gobolka Axmaarada ayaa marka ka dambaysa gacanta dowladda ka sii baxaya iyadoo laga baqayo gobolkaasi inuu ka dhaco dagaal aan la mahadin doonin waad mahadsantiin daawadayaal ciidamada Tigray ayaa haddana markii la dharaacyo bilaabay iyadoo maalmihii ugu dambeysay ay dagaal culus dhex marayeen ciidanka Tigray iyo ciidanka Axmaarada dowladaha Mareykanka iyo reer Yurub ayaa dhawaan baaqay soo saareen sheegay inay hakinayaan dagaalkaasi hogaamiyaasha Axmaarada iyo Tigrayna ay si toos ah ula xidhiidheen dagaalkana hakad la geliyo si looga wada hadlo dhibaatada halkaasi ka taagan hase yeeshee dowladda Itoobiya ayaa dabada ka riixaysa dhaqaale badan oo ku bixinaysa sida Tigraygu ay u weeran lahayn qoomiyadda Axmaarada oo waayadii ugu dambeysayba xarkaasi goosanaysay ciidanka Tigray ayaa la arkayay hubka culculus ee taangidu ay ka mid ka yihiin oo wadooyinka qulqulaya dhanka iyo gobolada la isku haystaan u sii jahaysanaya ayadoo Tigraygu ay waxaad ku mareen in marna hakin doon colaadaasi kibi ahaana dhulkooda ay gacanta ku soo dhigi doonaan